السلام عليكم أخياري فيلمكن waxa uu ku bilaamayaa keen cidla oo baraf ah kadib waxaan arkaynaa qof la jiiday oo ku dhex jira wax sida laashka oo kale ah markiiba waxaanu tegaynaa guri ku dhex yaala keenta dhexdeeda mise waa gabadh la soo aftuubtay markay soo kacdo lugahana waxa uu kaga xidhay jelis si uu ogaado markasta dhaqaaq samaysa ama istiraaka ka baxsan meesha kadib waxay arkaysaa raadiyo ay warqadi ku dhagan tahay wayna daaraysaa raadiyoga mise waa nin waxa uu ugu yeedhayaa iifa waxaanu u sheegayaa in keenta dhexdeeda ay ku xidhan tahay meeshana aanay cidi ka dhoweyn kastoo ay isku dayday inay wax samayso ma jirto cid badbaadinaysa waxa kaliya ay haysataana waa jihada saxda ah uu sheegaya waxa uuna ninku u sheegayaa inuu ugaadhsanayo sida kaliya ay ku badbaadi kartaana waa inay u socoto meel u jirta 5 mayl oo gaadhiga barafka lagu socdaa yaalo taas bayna ku badbaadi kartaa wuxuuna ku oranayaa soo doona gaadhigaas ama waan ku dilayaa sidaad ku gaadhaysana adiga aqaana wuxuuna u sheegayaa inuu ka helo ugaadhsiga xiisaha leh wuxuuna ku dhahayaa talooyin ayaan ku sheegayaa waa marka koowaad ee qorigeyga 3 badood oo kaliya ayaa ku jira diliya anna mar raba ugaadhsi fududta saddexaadna waa inaanad gurigan dhex joogin waayo waan ku soo socdaa meesha u horeysa aan ka raadinayna waa isaga kuna waxuba isga ka celisaa ma yaalaan ay ka baxso wax yar kadib ninkii ayaa soo galay qolka ninkii marka uu aqalka soo galo sharaab ayuu cabayaa kadib sawiraayu gidaarka saaraya marka uu soo baxo waxa uu eegayaa dhulka xagay martay isagoo raadinaya mise intuu eegaya xagay martay ay gadaal kaga imanaysaa waxayna ku dhufanaysaa maro ay ku gurtay dhagaxaan marka uu suuxo waxay ka dulqaadanaysaa qorigii iyo alaabtii uu sitay oo dhan waxayna ka helaysaa shandada ama boorsada katiinadii gacmaha isagayna ku xidhaysaa dhexdiisa ayayna soo gelinaysaa isagoo xidhxidhan waxayna kala baxaysaa golofiskii waayo dhaxan aad u daran ayaa jirtay albaabkana kursi weyn ayay ku tiirinaysaa si aanu uga soo bixin mise waxay arkaysaa inuu ninkan wax walba og yahay maskaxdana ka jiran yahay dibadda ayay u soo baxaysaa waxayna qaadanaysaa shandada ama boorsada ninka ugaadhsadaha waxayna u kacaysaa dhanka barafka si ay u raadiso ama u baadi goobto gaadhigii uu sheegayay waxayna u kacaysaa dhanka gaadhiga markaa iyadoo socota ayay waxay dareemaysaa inay cidi daba socoto laakiin cidna ma daba taagna marka ay eegto way soconaysaa iyadoo gaajo iyo haraad dareemaysaa waxayna ka dhuumanaysaa yeeyda waayo 3 xabadood kaliya ayaa ugu jira qoriga intii ay socotay waxay arkaysaa geedo calaamado lagu sawiray waxayna ogaanaysaa inuu ugaadhsaduhu ku sawiray geedaha waxayna odhanaysaa waan baxsanayaa kuma dhimanayo meeshan cidlada ilaa ay aragto buul yar oo meel ka dhisan intay ku sii socotay waxa ku soo dhacaya geed iyadana waxay moodaysaa qof markaa xabadii ay ridaysaa wayna iska khasaarisay dib buulka markay gasho mise waa dabin dirqi ama kadis ayay uga baxsanaysaa waayo ugaadhsaduhu waxa uu rabay qofkii gala buulkan inuu ku dhinto kadib waxay ogaanaysaa inuu khiyaameeyay ugaadhsaduhu waxayna go'aansanaysaa inay u socoto ilaa ay meel dad ku nool yihiin ka hesho mise waxay isku dayaysaa inay buurta dusheeda fuusho si ay u ogaato magaalada u dhow inta ay u jirto marka ay fuusho meesha waxay ogaanaysaa inaanay haba yaraatay magaalo u dhow aanay jirin waxayna go'aansanaysaa inay ku laabato guriga iyadoo rajeynaysa inuu ugaadhsaduhu weli ku xidhan yahay waayo isaga oo kaliya ayaa garanaya meesha sida looga bixi karo haddii uu diido inuu ka saaro waa inay disho kadib waxay ku laabanaysaa xaggii ama halkii ay ninka ku xidhay se markay u soo gasho waxay arkaysaa isagoo iska fadhiya waxna cunaya waxaanu ku oranayaa waan ku sugayay si aad ila cunto qadada waxaanu ku oranayaa waxaatay qofkii ugu horeeyay iga caqli badiyo waayo dadkii hore meeshan imaaday oo dhan sidaada oo kale uma caqli badnayn waxaanu ku oranayaa qaladka kaliya aad gashay waa inaad labada gacmood iga xidhin si dibla ah ama gadaala waayo markaa haddaa sidaa iga xidhi lahayd imika gaajo ayaanu dhiman lahaa waxa ayna ku oranaysaa ii sheeg sidii aan uga bixi lahaa meeshan haddii kale waan ku dilayaa waxa uu ku oranayaa haddaad dilatahay mar hore ayaad idili lahayd kadib waxa uu ku soo tuurayaa saxankii uu wax ku cunayay iyadna xabadii labaad ayay sidaa isaga ridaysaa waana khasaarinaysaa xabad qura ayaa ku hadhay waxay u kacaysaa dhankaas sawirada meesha uu ku sawiray mise waxay ogaanaysaa inuu ninkan ugaadhsado dadka ka badbaaday shilal ama xaalado aad u adag oo kaliya waxayna weydiinaysaa sida uu halkan ku keenay waxa uu sheegayaa inuu 4 bilood oo dhan iyadoo kaliya daba socday wax kastana uu ka ogaaday kadib maalin iyadoo qashin daadinaysana uu suuxiyay sidaasna uu ku soo aftuubtay ina ugu hanjabaysaa inay dilaysaa haddii uu ka saari waayo meeshan waxaana uu ka oranayaa haddaad dhinto adigana gaajo iyo haraad ayaad u dhimanaysaa la soco intay wada hadlayeen ayay waxay maqlayaan qof socda kadib waxa uu ka oranayaa cid labadeena ahayn meeshan ma joogto markaa qofkaasi uu soo galo dil oo toogo waxa uu ku dhuumanayaa dhulka hoostiisa ninkii waxa uu helayaa xagay ku dhuumanayaan kadib waa ay dagaalamayaan ninkii iyo ugaadhsadihii iifa ayaa ninkii wax ku dhufanaysa waanu suuxayaa markiiba way baxsanayaan waxaanu ku oranayaa si aan kuu tuso wadada saxda lugta dhaawaca igaga yaalla waxay igaga duub ama igaga xidh iifa waxay ka duubaysaa lugtii waxayna ogaanaysaa ugaadhsaduhu inuu yahay nin taajir ah dadka dhiigooda ku raaxaysta waxaanu uga sheekaynayaa lacagta iyo hantida uu haystaa intay leeg tahay
kadib sheeko badan markay dhex marto waxay weydiinaysaa geedaha maadiga ku sawiray sawirada waanu dafirayaa ma aqaan qofka ku sawiray ayuuna ku odhanayaa. kadib waxa uu weydiinayaa qiso ku dhacday Iifa beri hore waayo qisada way diiday inay saxaafadda la wadaagto waxaana ka odhanayaa ii sheeg maxaa u sheegi weyday qisada. ina ku odhanaysaa cidna uma sheegaya ee soco wadada i tus ilaa ay maqlaan yeey ciyeysa waxaanu ku odhanayaa yeeyda way noo dhow yihiin inayna cunaan ayaana macquula. ugu sheekeynayay Iifa waxa uu geenayaa meel uu ku diyaariyo hog qofkii dulmaraa uu ku dhaco wayna ku dhacaysaa Iifi. kadib waxa uu soo saarayaa fura si uu isaga furo jeebada gacmaha uga xidhan waxaana u sheegayaa intaas oo dhan inuu khiyaameynayay iyada. waxaanu rabaa inuu tago oo uu soo qaato shandad ama boorso uu meel kala dhigtay iyadana waxa uu kusii odhanayaa laba mid kala dooro inaad ku dhex dhimato godkan ama inaad isugtay ilaa intaan kaaga soo laabanayo ama aan kaaga soo noqonayo. isagoo raba inuu soo dilo ninkii weeraray Iifi waxay isku dayaysaa inay ka baxda laakiin waa ay ku fashilmaysaa markay daasho way iska fadhiisanaysaa mise qof ayaa usoo tuuraya xadhig kadib waa ay qabsanaysaa marka ay dusha usoo baxda waxay arkaysaa ninkii ay wax ku dhufatay markii dhoweyd inuu yahay waxa ayna ogaanaysaa labadoodaba inuu ugaadhsaduhu soo aftuubtay waana ugaadhsanayaa labadoodaba. kadib waxaa imanaya meesha ugaadhsadihii wayna islaynayaan ama dagaalamayaan labadoodu ilaa uu ugaadhsaduhu midi uu la soo baxo uuna ninka ku dhufto ama geliyo. ninkii meel ayuu ka tuurayaa isagoo u haysta inuu dhintay kadib waxa uu kacayaa dhankii Iifa waxauna arkayaa inay godka ka baxsatay waxauna odhanayaa imika ugaadhsigu bilaabmay sheekadu imikay bilaamatay. soo dabagelaya raadkii kabaheeda waxayna maqlaysaa codkii ugaadhsadaha waxayna u degaysaa faji ama qorshe waxayna bixinaysaa koorkeedii waxayna dhigaysaa ama saaraysaa geed si uu mooday inay fadhida meeshan marka sidaa uu imaado waxa uu arkayaa koorkii waxauna moodayaa Iifa waa uu ku soo cararayaa si uu u dilo. xagga dambe ama gadaal ayay kaga imanaysaa madaxa ayayna wax kaga dhufanaysaa waanu suuxaya marka uu soo kaco waxay ku odhanaysaa haddii gaadhigii meeshaan kaga bixi lahaad isiin weydo saac gudaheed ayaan kugu dilaya. kadib way soo raacayaan waxayna ku odhanaysaa dadka dhiigooda wax fudud ayaad u haysataa malaha adigu. kadib iyagoo socda ayay maqlayaan heese meel ka baxaya waxaanu bilaabayaa inuu u cararo dhankii heestu ay ka baxaysay raggii meesha fadhiyay ayuuna ka odhanayaa gabadhan inay disha ay rabtaa iga badbaadiyay. waxay u sheegaysaa inuu soo afduubtay oo uu dilayo waxayna ku qancinaysaa raggii inuu soo afduubtay kadib mid ayaa is odhanaya badbaadi midka kalena ugaadhsadaha ayuu la joogayaa. se intaanay dhaqaaqin ayuu dilayaa ugaadhsaduhu ninkii baaskoolada ayuuna ka qaadanaya kadib waxa uu ku dhufanayaa ninkii labaad waana uu dhimanayaa labadoodina halka ayuu ku dilayaa. kadib gabadhii ayuu soo kaxaynaya waxa uuna ku odhanayaa qisadii dadka aad ka qarisay iiga sheekee haddii kale waan ku dilaya waan kuu dhammaynaya. waxayna uga sheekaynaysaa sheekada waxayna ku odhanaysaa ama uga bilaabaysaa nin ayaa beri suuxiyey kadib waxa uu igu xidhay qol aniga iyo gabadh kale xoogna waa uu nagu haystay kadib waxaan kaga baxsaday maalin uu ka tegay albaabka oo furan. gabadhii kale ayaa uu la hadhay aniguna waan ka baxsaday waxa uuna u sheegayaa inay ballankeedii kasoo baxday sheekadiina uga sheekaysay markaa waa uu iska cafinayaa. waxa uu yaalaa gaadhigii barafku aqalka uu filimku ku bilaabmay gadaashiisa wuxuuna ka odhanayaa haddaad doonaysa waad kaxaysan kartaa ama waxaynu noqon karnaa isku guruub dadka ugaadhsadaa. waxayna ku odhanaysaa adarna kala daa waan iska tegayaa intaanay fuulin waxa soo weeraraya ninkii uu haystay ama uu moodayay inuu dhintay. kadib xabadii ama baaluutadii u dambeysay ee ku jirtay qorigiisa ayuu soo odhanayaa ku dhifa ninka mise Iifa xagga dambe kaga imanaysa mididii uu sitay ayay ku dilaysaa ugaadhsadihii. waxayna ku odhanaysaa intaanu dhiman ka hor waan kaa guulaystay adna waad guul daraysatay. kadib waxay kaxaysanaysaa gaadhigii barafka xaggaas iyo magaalada ayayna u kacaysaa. khiyaaray filimkeenu halkaas ayuu ku dhammaaday ogowna waqti badan baa galay waxaan rajaynayaa inaad ka heshaan fadlan ha iloobin inaad dhahdo subscribe like share ha noqon bakhayl waxaan ku leeyahay aad baad ugu mahadsantahay daawashadaada wassalaamu calaykum.